إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تشكر. لك الحمد على كل حال ولك الفضل والثناء يا ذا الجلال. نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على كل حال لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. سورة وذا أصحاب تغالق بارك الله فيكم. فيديوغن إن شاء الله تعالى وحين كسو قادن دونا شيخ عادو عد معان عدكيسو مركاسو آدو دقيهي مركز دقيسانيسو وحا دريميسا حسلوني إيا دقنانشيو walaaladeen ayaa Allah barakeeyay waxay naga dalbadeen inaynu soo qaadano Sheikh Badr Turki oo kamid ah imaamiyada waqtigan Masjidullah al-Haram tujiya. Sheikh runtii waa mid aad u cod macaan, codkiisu uu degan yahay. Sidoo codkiisu uu degan yahay ayaa noloshiisuna runtii ay u degan tahay. Isagoo Sheikhu cod macaan ku akhrinaya oo taqliidinaya ama ku dayanaya Sheikh Ali Jabir bal ila dhageyso xaada ayaa markaasi ku dhaqaaqaysa. إن شاء الله تعالى وحين كورمي دونا تاريخ دي سو كوبان سو دواده بارك الله فيكم. هدي aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe ta noo saar siina share gare si uu khayrkaasi u gaadho dad fara badan. soo dhawaada بارك الله فيكم. شيخ مقعيس ودميسترا وبدري بن محمد بن عبد الله بن صالح التركي وحاو كل شيء مقالة بريدة لبي اللباتنكي دو القعدة كنا فربقولي أفرتي هجرية. شيخ يرانتيسي وحاو كبر باري مقالة داسي وحانو بلا بحفظك قرآن كريم كاه سقو أيدادي سيرتهي وحانو الشيخ كسو جيدا مركز قوي سهل الدين وكدد على حفظك قرآن كريم كاه. شيخ waxbarashadiisa nidaamiga ah waxa uu bilaabay 1411 hijriga waxaanu galay dugsiga hoose ee la yiraahdo Imam Malik. Hadana waxa uu wareegay dugsi hoose oo la yiraahdo Imam Ibn Taymiyyah. Sheekhu dugsi dhexe iyo dugsi sare waxa uu ka dhigtay maxadka cilmiga ah ee Burayda waxaanu dhiganayay muddadii u dhaxaysay 1417 ilaa 1423 hijriga. sheekhu markuu ka baxay dugsi sare waxa uu muadin ka noqday masjid ku yaala magaalada Burayda oo la yiraahdo Salih al-Bulayhi waxaanu muadin ka ahaa ilaa 1429 hijriga. inta kadib sheekh waxa uu imaam ka noqday masaajidkaasi uu muadinka ka ahaa ilaa markii dambe uu ka noqday imaam iyo khatiib masaajidkaasi. 1431 sheekhu waxa uu soo wareegay
masjidka la yidhaahdo Cumar bin Cabdilcasiis ee isna ku yaala magaaladaasi Burayda oo markaasi imaam iyo markaasi khatiib uu ka ahaa. sheekhu waxbarashadiisa heer jaamacadeed waxa uu ka baxay jaamacadda Imaam Maxamed bin Sacuud ee ku taala magaalada Riyaad. Kulliyadda markaasi dacwadda ayaa uu ka qaatay digrigiisii ugu horeeyay 1433 hijriga. sheekhu intaa kadib waxa uu wareegay masaajidka la yiraahdo Cabdullah an-Nisyan oo uu markaasi imaam ka ahaa ilaa 1439 hijriga. masaajidkaasi ayaanu sheekhu ku soo caan baxay oo markaasi lagu bartay codkiisa macaan. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. intaa kadib sheekhu waxa uu u soo wareegay magaalada Riyaad waxaanu markaasi imaam ka noqday masjidka la yiraahdo Masjidu Walidatu Amir Bandar bin Cabdilcasiis. haddaba sheekha mar la wareystay markii uu ka soo wareegay mandaqadaasi Qasiim ee imaamka ka ahaa ee uu soo wareegay magaalada Riyaad iyo sababaha uga yimid ayaa sheekhu waxa uu ka waramay inuu uga soo wareegay awal shay magaalada Riyaad inuu ka dhigto waxbarashadiisa uu kor u sii qaado oo jaamacadkii waaweynaa ee ku yaalay markaasi uu galo. sidoo kalena uu markaasi uu ka dalbaday amiirka Bandar bin Cabdilcasiis oo kamid ah boqorada Sacuudigu inuu masaajidka hooyadii u dhisayay inuu imaam ka noqdo. masjidka markii la dhameystirayna uu sheekhu markaasi uu imaam ka noqday 1439 hijriga. sheekhu waxa uu imaam ka noqday Masjidullah al-Haram oo markaasi laga dalbaday inuu kamid noqdo aimada ama imaamiyada Masjidullah al-Haram Shabcaan 1446 hijriga. sidaasi ayaa uu sheekhu uga mid noqday imaamiyada Masjidullah al-Haram. haddana sheekha waxaa loo doortay mushrifka barnaamijyada wacdiga diiniga ah ee ka socda markaasi Masjidullah al-Haram iyo masjidka Nabiga calayhi salaatu wasalaam. sheekhu sidoo kale waxa uu ku guuleystay jaa'isadda boqor Cabdilcasiis ee markaasi dowladaha ee xifdiga Qur'aanka Kariimka ah, tafsiirka iyo markaasi tajwiidka 2014. sheekhu runtii waa mid codkiisu aad u degan yahay waxaanu ka mid yahay imaamiyada loogu jecel yahay markaasi codkooda imikana tujiya markaasi Masjidullah al-Haram. haddaba sheekha qisadiisa iyo noloshiisa waxaynu ka fahmaynaa walow aynaan helin markaasi tafaasiil fara badan oo xog hoose ah aynaan helin, haddana waxaynu ka fahmaynaa ama aynu ka faa'iideynaa awal shay qofku inuu ku bilaabo waxa imkaaniyaadka uu gacanta ku hayo ee aan u sugin wax walba inuu xagga sare uun kaga boodo. tusaale ahaan sheekhu markuu bilaabayay inuu imaam noqdo waxa uu awal shay ka bilaabay inuu muadin noqdo, inuu masaajid ka eedaamo. masaajidkii markuu ka eedaamay haddana waxa uu noqday isla masaajidkaasi ayuu ka noqday imaam iyo khatiib ilaa uu ka mid noqday markaasi aimada Masjidullah al-Haram. marka qofku haddii uu mawhibo leeyahay waa inaanu ka fakirin awal shay inuu waxa xagga sare halka u sareysa uu kaga boodo, laakiin uu ka fakiro maxaa aan haystaa ama maxaa ii suuragala waxa uu hayo uu ku bilaabo ilaahayna uu ku tala saarto. marka kor ayuu markaasi uga sii kacaya oo uga taraqiyaya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.